waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ciidamada NISA oo waajibaad runtii aad iyo aad u weyn iyo hawl aad u weyn qabtay muddo 48 saacadood ah ku hawlanaa baabuur ay soo geliyeen ciidamada nabadiidka ay rabeen inay wax ku yeeleeyaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan runtii arrimankaas ayay ahayd waxaan idinku yeernay waxa dhacday sida aad ka warhaysaanba ama indhihiina ay arkayaan laba nin oo halkan ku xiran oo baabuur caasiya wata oo runtii qaraxyo tiro badan oo caagag iyo isugu jira alaab qaraxda oo kala duwan oo badan oo aad indhihiina ku aragteen ugu soo talagalay inay wax ku yeeleeyaan shacabka Soomaaliyeed iyo dhulkan nabadaysan oo runtii aan dhihi karno waa dhul nabadaysan inay carqalad geliyaan ay shaki geliyaan ay u muujiyaan inay maartay meel kasta ay wax geyn karaan laakiin waxaan u mahad celinaynaa ciidamada amniga oo ay ugu horeeyaan ciidamada nabad sugidda NISA oo hawl runtii aad aan u tiro yareen qabtay 48 saac ee ugu dambeysay soona helay gaarigii ay wateen oo ay ka buuxeen walaxaha qarxa gaarigaas oo ah gaari caasiya oo aan rajaynay inaad aragteen oo hortiina ka muuqda runtii waa u mahad celinaynaa waajibaadka ay guteen dadkii shacabka ahaa ee kala shaqeeyay wargelintooda iyo maaragtay ka shaqeeyay garab siiyeyna waxaan leenahay aad iyo aad u mahadsantihiin haddii shacabka iyo dawladda ay isku xiran yihiin tan oo kale ayaa dhacaysa dhibaato looma geysan karan shacabka wayna u fududaanaysaa ciidamada amniga inay gutaan waajibaadkooda inay ka gutaan sidaan oo kaleete shacabka reer Galmudugna aad iyo aad aan ugu hambalyeynaya waxaana ka codsanayaa in ay sida ay hadda ula shaqeeyaan waligoodna ay ula shaqeyn jireen inay aad ula shaqeeyaan oo marka ay arkaan waxyaabo ay ka shakiyaan ay u soo gudbiyaan ciidamada amniga ay u soo gudbiyaan si ay waajibaadkooda ay uga gutaan waxa kale oo rabaa inaan ku baaqo oo inta ka cadeeyo runtii madaxweynaha dawladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu ballan qaaday in uu maartay cid kasta oo soo sheegta gacan ku dhiglayaashaas dadka dhibaateeya cid kasta oo soo sheegta inuu siinayo maartay abaalgud oo siinayo dadkii soo sheega waa haynaa qofkii soo sheega waa haynaa waxaan codsanaynaa in uu maartay nin kale waajibaadkiisa ka guto oo abaalmarintii u diyaar gareeyo waa u soo gudbi doonaa insha Allah qofkii muteestay ciidamada amnigana waa u mahad celinaynaa runtii waxayna leeyihiin in lagu amaano ayay leeyihiin in lagu abaalmariyay leeyihiin taariikhda ayaana qori doonta runtii waana u hambalyeynaa shacabka reer Galmudug dhamaantiis sida ay gacan uga geysteen ciidamada ay ula shaqeeyeenna waa u hambalyeynaa iyo maaragtay dadkii kale ee soo sheegay intaba waxaan rabaa inaan kaga faa'iideysto shacabka reer Galmudug sida ay u heelan yihiin inay la shaqeeyaan ciidamadooda amniga ah waa inay sii xoojiyaan waa inay intaas in kale ku sii daraan cadawna nooma imaanayo dadka naga dhimanayana waxay noqonayaan dad maaragtay aan qof gacantiis aan ku dhimanin waa u mahad celinaa runtii 100% ula sii dhawaadaan leenahay ciidamada amniga oo dhinac kasta lena waxaan leeyahay heegan hala galo runtii waxa nagu soo dhacaya in baabuur kale ay ku jirto aaga oo ay iyaga naftirkooda ay wareegaysanayaan oo ay raadinayaan meel ay ka soo dhacaan ayagana waa in baabuur alla baabuurka arkaan cid kasta cid ay arkaan waa inay soo gudbiyaan oo ay wax ka qabtaan runtii ciidamada amnigana ku soo salimaan aad iyo aad u mahadsantihiin adinka wariyaashana waa idin mahad celinaya waana mahadsantihiin gudoomiyaha ka bixin waxyaabahan qarxa ma la ogyahay meesha la doonayo in lagu weeraro runtii waxaan ka sugaynaa taas ciidamada amniga ayaan ka sugaynaa warbixinada hooso nooma kala cadda laakiin waxaan ka sugaynaa ciidamada inay noo soo gudbiyaan meesha lagu qarxin doono iyo meesha loo waday waxa la leeyahay dad kale la soo qabtay iyagana lagu eedeynaya ma jiraan dabcan ilaa hadda waxna soo gaar ma jiraan laakiin dad lagu raad jooga ayaa jira oo saacadaha soo socda aan rajaynayna in ciidamada gacantooda soo galaan gudoomiyaha xagee lagu qabtay ragaan maxaas ka yeelaysaa runtii waxa weeye waajibaadka waxay sharciga ka helaan ayay leeyihiin waxaana naloo sheegay inay ka yimideen ilaa Galhareeri inay ka yimideen ay soo mareen nin kale ceel qooxle ay soo mareen ilaa halkaas ay waxaan soo sideen ayaa naloo sheegay waxaad la socotaan in qolyooyinkan hadda la soo qabtay qoladii kale ay u yeeratay oo ay yiraahdeen kaalay maarta alaabta ay ku wareejinay baabuurkan waa lagu wareejiyay alaabta runtii baabuurkii soo qaaday ma aha marka kan waa lagu wareejiyay runtii dad ayaa maartay kala shaqeynayana waa kuwa gacanta lagu dhigay kuwa kalena waa lagu raad joogaa waana muuqdaan hadda oo meelo badan inay marmareen ayaan la soconaa